ان marka qaabkaas u qoraysaa dhamaantoodba marka jiimka waxa uu la mid yahay xaada oo kale waa isku qaab weeyaan isku qaab baad u qoraysaa khaadana oo kalena waa isku qaabkeedu qoraysaa marka dhibcaha uun bay ku kala gedisan yihiin wax kale oo ay ku kala gedisan yihiin ma jirto sidii aad jiimka aad yacnihi aad markuu bartanka yahay markuu ugu horeeyay aad u qoraysaa saas oo kale ayaad u qoraysaa adigu 6 xaraf uun baa iska ilaalinaysaa 6 xaraf oo ahaa alifka iyo daalka iyo daalka ra'da zaada iyo wowga dhammaantood waxay ka sameeyeen wowga dhanka waxba lagama qori karo dhanka waxba lagama dhijin karaan ka wadaa zaada dhanka waxa lagama dhijin karo raada dhanka waxa lagama dhijin karo daalka dhanka waxa lagama dhijin karo daalka waxa lagama dhijin karo alifkana dhanka waxa lagama dhijin karo marka qaabkaas uun weeyaan haddaan xuruuftaas soo gelin waxa weeyaan inta kale waa isku dhijin kartaa xuruufaha oo dhan waa isku dhijin kartaa haddii kuwan soo dhex galaan waxa weeyaan xarafka ku xiga mid walba xarafka xaggan ka xiga waxa uu qormayaa marka uu bilowga yahay oo kale qaabkaas oo kale buu qormayaa haddii ugu dambeeyana wuxuu qormayaa qaabkan oo kale يعني markuu ugu dambeeyo ama marka de alif wax male baa hoos kale qaabka loo qoro oo kale waa markuu ugu dambeeyo loo qorayaa hadii ugu dambeeyo weeyo tusaale hadii fa iyo ra iyo ha lagu qoro waxa weeyaan labadan ra'da waxaan ku yiri xaggana waxa laga qori karin xaggan ba waxa laga dhijin karin laakiin dhankan waa laga dhijin karaa midigta waa laga dhijin karaa bidixda ayaan laga dhijin karin marka maxaan sameynaynaa fa'dii baan soo qorayaa saasaan soo qorayaa ra'dana waa ku dhijinayaa ma ku dhijiyay xaada iyaan lagu dhijin xaada qaabkii u qorayaa haddaad xaad ugu dambaysa haddaad eegtid ugu dambaysa xaadi haddaba xarafku hadduu ugu dambeeyo waxaa loo qorayaa markii ugu horeysay xuruufta ee alif wax male baa hoos ku ale ta korku laba lagu qorayay qaabkii loo qori jiray marka qaabkee loo qoraa qaabkaas weeyaan hay saasoo kale xaadi saasaa loo qoraa marka dee alif beetada ugu horeysa markay tahay saasaa loo qoraa haddii haddaba ereygu uu dhexda uu ku jiro tusaale ahaanba deel baa bilaabayba deel iyo waxa weeyaan iyo jiim iyo miim baan rabaa inaan isku dhajiyo xarafka ugu horeeya muxuu yahay waa deel Soomaali deelka maxaa waajibaha inaan dhankan waxba laga dhijin laakiin dhankan waa laga dhijin karaa laakiin maanta dee isagaaba ugu horeeya oo dhankan erey kuma wato maxaan sameynayaa deelka gooni ku soo qor markaa ku qor jiimka sidee u qorayaa jiimka waxaan u qorayaa sida tan maanta sida marka ugu horeeyo oo kale markuu ugu dhaxeeyo kale uma qorayo sababtoo ah markuu ugu dhaxeeyo waxaan u qorayaa kuwa wax ku dhegsan hadii jiimka ay jiri lahaa erey kale oo ku dhegsanaya ee halkan haddaad eegto waxa loogu baneeyay oo saa loogu yara dheereeyay waxa weeyaan xaraf kale oo inuu jiraa uu ku dhegsado ama ku dhegsami kara haddaan xaraf kale aanu jirin ama lagu dhejin karo markuu dhexda yahay waa markuu deelku uu ka horeeyo iyo alifkii iyo xuruufiya waxba lagu dhijin karin waa inay ka horeeyaan marka maxaan sameynaa qaabkee u ekaanaya shakligiisu waxay shakligiisu u ekaanayaa marka uu bilowga yahay oo kale marka hadda deelkii waa soo qoray jiimka markuu bilowga yahay qaabkee weeye qaabkan weeye hadda dhexdii ku jira jiimka haddana waa deel baa dhankan karaa sababtuna waa maxay uu sidan oo kale u noqday sababtu waxa weeye deelkii baan ku dhegsamay hadduu deelku ku dhegsami lahaa jiimku marka sida bartanka markuu ku jiro oo kale baan u qori lahaa marka maxaan sameynayaa hadda jiimka sida bartanka markuu ku jiro u qori maayo hadda waxaan u qorayaa marka ugu horeeyo qaabka loo qorayo marka qaabkaas kale aan u qorayaa marka maxaa ku xigay miimka iyo jiimku isku dhegsamaan kan jiimku kama mid ah kuwa xaggan aan waxba laga dhijin karin wuxuu ka mid yahay kuwa wax kasta lagu dhijin karo dhinac kasta laga dhijin karo marka saasaan u qorayaa
okay jiimka iyo waa kasoo warramay sida loo qorayo marka ugu horeeyo marka ugu dambeeyo xaadana jiimkay la mid tahay kha'duna sidoo kale saddexdaasi waa isku qaab baa loo qorayaa deelkana u gudbaya deelku wuxuu ka mid yahay xuruuftii aan waxba dhanka lagaga dhejin jirin deelka halkan waxba lagama dhejin karo xaggan waa kaga dhegsamayaa laakiinse maanta isaga ugu horeeya hadduuba isaga ugu horeeyo xaggan dee waxba kama xigaan markaa isaga ugu horeeya markaa deelka xarafka kale ku xigay gooni ka dhig ha ku dhejin weeyaan okay haddiinu saa sheegnay oo aanu nidhi xarafka dhanka waa lagaga dhejin karaa dhanka laakiin lagama dhejin karo hadduu bartanka ku jiro xarafka dhanka ku xiga ku dheji waa lagu dhejinaya miimka oo kale waa lagu dhejinaya xuruufaha dhanka ka xigoon dhan ku dhejinaysaa marka laga reebo dee deelkiiyo daalkiiyo raadigo inaan xagga ka xigin xuruufihii kale oo dhan waa lagu dhejinayaa laakiin xaggan maay deelku marka ugu dambeeyana dhankan waa lagaga dhejin karaa laakiin dee xaggan cidba kama xigto saa ugu dambeeya markaa deelka iyo daalka labadaas weeyaan ka kalena waa ka boodi doonaa hadhow markaa kan wayna si fiican u fahantaa okay waxaa lasoo qoray dub waxaa lasoo qoray deel iyo ba deelka ugu horeeya deelka hadduu ugu horeeya halkaa gooniga istaaji ba'di waa ugu dambaysa marka ba'da saa goonida ugu qor dub waxa weeye bahalka madax kutida loo yaqaano okay haddii lasoo qoray jiim iyo deel iyo cayn waa sida halkan hoose ku taalla maxaan samaynayaa jiimka deelka dhexdii ku jira soo maaha deelkii waa kan ku dhexdii ku jira waxaan idinkuu sheegay xaggan waxa ka xiga oo dhan ku dheji marka laga reebo kuwii aan waxba ku dhegsami karin ee deelka iyo raadi iyo kuwaasi marka laga reebo wax kastoo ku xiga oo dhan ku dheji okay maxaa ka xiga xaggan jiim baa ka xiga jiim wuxuu ka mid ahaa kuwa wax kastaba lagu dhejin karo marka maxaan samaynayaa jiimka markuu bilowga yahay baa soo qoraya qaabka loo qori jiray qaabkaasaa loo qori jiray waxa ay xiga deelkana saa ugu dheji deelka marka saa lagu dhejiyo maxaa xiga deelka waxaa la yidhi halkan waxba lagama dhejin karo caynkii baa marka halkaasaan dhigayaa caynka halkaasaan dhigayaa oo ku dhejin maayo markaa qaabkaa weeyaan waxaa xiga iyadana xarafka deelka marka ugu dambayso dhankan waa lagaga dhejin karaa marka laga reebo lixdii dee aan waxba lagu dhejin karin alifka iyo deelka iyo daalka iyo raad iyo zaad iyo wowga marka maxaan samaynayaa maanta tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa axad maalinta loo yaqaan axadda alif iyo xa iyo deel bay ka kooban tahay a'dii baan soo qorayaa saasay tahay xa'da halkaasaan ka geynayaa anigu deelkan u baahanahay waxa kale iska dhaaf alifka iyo waxaasoo dhan iska dhaaf iyo xaadaysa bartanka markay tahay loo qorayo waxaasoo dhan iska dhaaf deelka markay saas tahay deelka waa lagu dhejinayaa xaada waa lagu dhejinayaa xaada markaa haddii xaraf kastoo xaggan ku xiga waa lagu dhejinayaa marka laga reebo xuruuftii aan waxba lagu dhejin karin sida ra'dii oo kale ra'dii baa halkan ku jirta markaa deelku saas buu gooni u noqday haddii ra'daasi xaraf kale aan ku bedeli lahaa tusaale ahaan miim oo kale aan ku bedeli lahaa miimka iyo deelkaas way isku dhegsami lahaayeen markaa qaabkaas oo kale ayaa iyadana loo qorayaa markaa deelka iyo daalka saasa qaabkaas weeyaan ka dhexe baa waxba xaggan lagaga dhejin karin ka ugu horeeyana dhanka waxba lagagama dhejin karo laakiin ka dhexe halkan waa lagaga dhejin karaa ka ugu dambeeyana dhankan waa lagaga dhejin karaa keliya waxaad ka ilaalinaysaa xuruufihii alifka ahaa iyo deelka iyo daalka iyo ra'da kuwaasi waxaa waajib ahaa xaggan inaan waxba lagaga dhejin markaa deelkana gooni baad ka dhigi lahayd ra'da iyo bahalkiigana gooni baad ka dhigaysaa markaa deelkiiyo daalkii halkaasaan ku dhaafayaa ra'da iyo za'duna waa isla mid waa isku qaab keliya sidii hadda qaabkii oo kale baan ka dhigayaa waa isku mid sida deelka iyo daalkay la mid tahay laakiin
shakliga loo qorayaa ka duwan marka casharka ku xiga ayaan ku qaadan doonaa